soo dhawaada xaggana waxaad ku aragtaan waa 2D diyaarsan. wax fahmaya qolada architecture-ka wax ka yar bartay ama engineeriyada wax ka yaqaana. kan waa 2D mararka qaar waxaa dhici karta adoo 2D baa lagu soo dhiibay waxaa lagu oranaya 3D giisi samee. hadda waa guri designkii 3D giisa waa barti laga tixraacayay isaga la'aan lamaba dhisaba waayo waa wax documentation-ka lagu sameeyay waxaan ay nooc 3D create wuxuu ka saacidayaa nooca u ekaanay gurigu. hadda design-kan yar oo ka kooban waa 2 qol, kan iyo kan hoose iyo suuliga iyo kitchen-ga iyo intaas. kolka kan waxaan isku dayaynaa inaan 3D giisa soo saarno inagoo software-ada loo adeegsanayna. kole software badan baa la adeegsadaa ArchiCAD kamid ah, AutoCAD kamid ah iyo kuwo kale. kolka waxaan adeegsanaa ArchiCAD kan la dhaho kaaba ugu fiican kolka 3D-ga la joogo. 3D-ga si fiican isaga 3D-ga ku yara fiican kolka kaasaan adeegsanaynaa. wuu ii furan yahay xaggan hoose bii yaala waa kan kuwan horta iga delete garee kolka saa usoo baxo working unit-ka la iska saara option-ta degto project preference ba tegaysaa working unit-ka iska saaraysaa meter anigu horaan iga saxsan yahay laakiin markastoo project bilaabayso working unit-ka waa muhiim inaad iska saarto. okay xaggan meelahan waa waxyaabaha aad isticmaali doonto. xaggan wall-ska baa kamid ah, xaggan door albaabadii column-kii windows-kii waxyaabihii oo dhan baa kugu diyaarsan. hadda waxaan u baahanahay gidaar si aan u sameeyo. sidan muxuu yahay waa 6 mitir iyo sidan wuxuu yahay 6 mitir 6 iyo 10 kolka xaggan waa centimeter ahaan buu isugu sameeyey waa 616 centimeter kolka mitir bedel waxay noqon halka mitir wuxuu inoo yahay 100 centimeter sooma waxaan dhahaynaa 6.116 mitir buu yahay. okay saasaan soo qabsanayaa sidan baan u kacayaa marka waxaan dhahayaa 6.16 hadda gidaarka waan kiciyey. geeskan kale muxuu ka yahay geeskan wuxuu yahay waa 6.15 halkan aan kiciyo halkana 6.15 hadda labada gidaar baan kiciyey. okay kiisana aan kiciyo kolka eeg intan waa 1 mitir intan 1 mitir xagee inta kasoo saar xaggan baan kasoo saaraya waayo waa maxay waa length-kii times width-kii weeyaan kolka width-ka ugu dambeeya inta badan waa 100 kale intan waa 1 mitir kolka gidaarkan wuxuu noqonayaa intii oon 1 mitir ka jartay intaas buu noqonayaa. intana xaggana wuxuu noqonayaa 2.5 aan ka jaray inta xaggan kolka waxaan ka dhigi triangle baan ka dhigi waan isku qaban joog anaa kuu sheegi soo qabso kadib right click dhe waxaad haysaa drag and copy materi xaggiisa kale ii keen kan xaggiisa kale ii keen drag and copy waan dhahayaa xaggiisa kale aan keenay. hadda waan isku wada xidhnay kolkaas hadda waxaan rabaa inaan intan yar xaggan 1 minute kan xagga 1 mitir kan kasoo jaro xaggan aan kasoo jaro 2.5 ayaan uga jarayaa. wareen gidaarkan wuxuu ahaa 6.16 buu ahaa calculator xaggan ogey wuxuu ahaa 6 si aad u fahantay 6.16 laga jaray baa leedahay maxay laga jaray maxay 1.2.5 imse wey waa 6.66 bes waxaad dhahaysaa xaggan intaad saa u qabato saa dhahaysa saa intay u dhixta baa dhahaysaa 3.66 kaas wuu isjaray. kana saasi lamid ah kan gidaarka dhankan wuxuu ahaa 6.05 ahaa laga jaray baa dhihi 1 mitir waa imsa waa 5.15
saasaad u qabanaysaa, saasaad u riixaysaa, waxaad dhahaysaa 5.05 okay, intii baad ka jirtay bas labada saasaa iskugu soo qaban hadaa uu yahay waan isku soo qaban xaggan saasaan iskugu soo qaban xagga iyo xagga waan kusoo qaban okay aan isku soo qabto hadduu hadda saas kaa noqdo xaggan qaybta dhanka ma tegeysaa hadda outside buu ka yahay kolka waxaad dhahaysaa inside baad dhahaysaa inside hadaad aragto isbedel baa muuqda haddaan hadda outside dhaho gidaarkii qaybta kale uu noqonaya kolkuu gidaarkiisu u dhex galo dhismaha ama designka waa inaan saa dhaha kadib inta sidan muxuu ahaa intuu ahaa baan dhahay was 2.5 iyo saa u ahaa markaas qaybtan kalena saas kugu qabo qaybtana saas kugu qabo xaggana sidii oo kale u noqdo hadduu saa kaa noqdo xaggan baa outside ka kolka waxaad dhahaysaa inside maya waxaad dhahaysaa outside saas kaas hadda waxaan sameynay hadda gidaarkii guud baan sameynay balse way kadaan eegno waa kan sidan buu u ekaaday weli waxba kaminaan qaban laakiin intii guud baan sameynay hadda haddaan ku noqon hadda qolalka sameedaasna labadan way kala duwan gidaarada hadaad arkayso kan gidaarkan iyo gidaarkani isku dhuuc maaha inta badan gidaarkan weyn waxaa laga dhigaa 0.4 mitir ama 40 centimeter baa laga dhigaa kana 20 centimeter kolkaas gidaarkii sidee isaga kana 40 kana 20 centimeter looga dhigaa kanka cashirka yar kan ku xiga yaan isku daynaa inaan qolalka ku sameeyo laakiin kan intaan kusoo gabagabeynayna hadda dan gidaarka soo qabto aan ku dhex sawirsado wall baan soo qabsaday waxaan qol ka dhex sameey baan siri gidaarkii iyo kan waa isku dhubuc kolkaas si labadu dhubuc u kala yaraado waxaan sameynaya qol gidaarkiisa usoo qabsado sittingigaan ka tegaya xaggan dhubucda xagga ayaan ka dhigayaa 0.2 kadib aan qolkii ku dhex sameynaya marka waad aragtama hadda dhubucda way kala yaryihiin kan waa maxay waa 40 centimeter kana waa 20 centimeter sidaa weyn kolkaan interior wallka isticmaalina 20 centimeter baan isticmaali doonaa kanka ku xiga waxaan sameynaynaa qolalka kolba saasaan u wadan insha allah